عليه الصلاة والسلام وحو كيد قريش أدير أنو كلمة بان للربا إني مركلي يرادان حدي كلمة أي يرادان هي عرب أودنا مدح بي أنقنيان عرب عجم أودنا جزية كقاضيان كلمة سوى محي ولا إله إلا الله أبا جهل بصرك وحو يري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدح بقول لحدا إله عابديني أيا باهدا يدي دبولي كرلي محمد موحى ولي متكلي عابدا وارنغا كعيه بودي ماشا إله يدينا عبادتنا هكو صبرنا مرادك محمد وكلي دين ديسن كدينا يو كهريا ما هنا نغا مريا بيدادين markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo haray markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hadal xun kuma oran waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kelmadda mar ii dhabuuri qiyaamaha ku marxaati furee hal mar adigu ii dhabuuri kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu isku taagay calayhi salaatu wassalaam kolkuu u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiya Abu Jahl yaa uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer ha kalimatan uhaaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah maalinka qiyaamaha ku marxaati fure oo han ku shafaacad qaade hal marun kelmadda aniga ay maqashiibu ka yiri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam markaasuu eegay Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa ku yiri atarghabu an millati Abd al-Muttalib ya Abu Talib man millati Abd al-Muttalib baad maanta ka weecanaysa diinti Abu Yashin intood ka tagto diintan cusub ee Maxamed uu la yimiday miyaad rumaynaysaa oo raacaysa oo aamusa hadana nabiga soo yarjiidiyay sallallahu alayhi wasallam adeer kelmadda mar labaad igu celi buu ka yiri mar labaad hadana waa aamusa hadana Abu Jahl baa soo jeediyay markii uu dambeysay Abu Talib wuxuu yiri ala millati Abd al-Muttalib baan ku dhintay Maxamed oo iska kaydaa buu ka yiri إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذكوا جعلات تبى النبي قال له ما هذين كريس دلالة هذا ولادها الدلالة هداية هذا ولادها وحويان إن هذا خير كذا ويجد إن هذا كلمة أوبن دكتد إن هذا الناس تحيسد إن هذا الدم قتد إن الدين توشكتد وشغل هذا ويان لكن قلوب تودا أنك هاي نبا إلى هاي ليه هاي كان دون قلبك سأنك نور يا هداية قلبك سجلين هنا كانت جعلات هذا ما هدين يسي marka Abu Talib oo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam adeerkiina hidaayada nasiib u muusan yeelin Salman oo Farisin ilaahay waa soo hadeeyay Abu Lahab oo Nabi Muhammad adeerkii la xamiyana hidaayada nasiib u muu yeelan Bilal al-Habashina ilaahay tabaaraka wa ta'ala waa soo hadeeyay yahdi man yasha ku doona ilaahay isaga hadeeyay كودو marka ilaahay asmaadiisa waxa kamid ah al-hadi hanuuniye al-hafid wa asmaada ilaahay ilaaliye saga ku ilaalin sidoo doono kugu ilaalin meeshu doono kugu ilaalin goortu doono ku ilaalin bila asbaab سقال كان مقع إلهي النبي محمد يري مقع ذا ونكسنا إلهي أوليه كو الله بريو باهدين كو يديس تبع علمه لين سقال كان مقع به مقع والله معنى قوني وحنبار سنيح مقع والله معنى قوني أي حنبار سنيح
marka hidaayada asbaabteedu waa saddex bay culimadu yiraahdeen waa saddex shay awwal shay waa talab waa inuu qofku doono inuu hanuuno dad adiga aanad rabin ba ilaahay rasuulka inaad raacdo awaamirtooda da ilaahay rasuulkiisu adigana kuma rabaan kuma baahne ada u baahan diinta ada u baahan inaad hanuunto adiga u baahan inaad ilaahay adeecdo adiga u baahan inaad diinta islaamka baratood ku dhigtood ku dhaqanto ada u baahan waayo diintu ayada dadka dhigaysa diin la'aan waa dugaag baad noqon wadanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo saajiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin hinduus oo gaal oo mushrika oo wadanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas marka intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa ee Australia ahaa ee Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee marka la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsameeyaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysa maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahaynoon wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxaynan ku qaado gabadhiisiiba marka inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuuri aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay hambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galaysay tiri war kala keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وحيت بريت ولا انكم اركان دونيا وايو وين انت ودغ عين كاس او دلي ويانا ما انت كنت مد يا ابيه لا صوتي اي كان بالبو marka ku martay qaaday markay u timiday wuxuu marka islaantiisii soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay
وحول الروح عنك لو حاس كيجي دين تيد إسلامكو إيما أقولنا يسوع إن أنا أديك كل اليوم لما لو أنكو جاي أديك محرم بديته محرم يمتي محرم بدو بانت نبي محمد بايري نن الناقة جانب ينوسن لك اليوم إلا محرم كي يقول له جوجا موياني عليه الصلاة والسلام تعالى هرت الضعب كتر قلبي جدي الدين بال يا مشهد تعالى وعيت للسؤال بنك ويدينا يا دين هذا هذا هو محي وإسلام يا ده من سنة هاي شيء الله بنا من سنة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار عيرك أبورة لك أبورة مركا هالكي فرصة وحي قلنا قطي إنه ننكي قبل ودعوة السير إنه يدي هالكي كو إسلامته إنه هوتيلك يكون نقط إنه هو يدي أبيه يدي كدنا دعيس دين الإسلام كا ولا بدي والده دعوة وين أي كو قنعانين دين الإسلام كسوق قلان هداية دمرك عليها هاي لأن عربي ومقالات المدينة دولت كي قد جنا أي حوله سنات كمدو بروا كضفي يجيب كضفي لأن مركز كسر رتب الليل يجيب تو صاي يجيب كويري رزق إلهي أبكو ويسوق لينا هذا محاد يقرر رتب كويري والبروا أو كلمة ثلاث يجيب رزق إلهي أبكو ويسوق لينا هذا محاد يقرر رتب مركز نيجي دجاج مقصوده وحيري وعجباه الذئب يتكلم كلام الإنس ما يجيب اللغة بني آدم كيقول الله يا يجيب جوابه وحكيري وحا أنا جاي عجب بدن بقول شيء محمد عليه الصلاة والسلام ومقالات المدينة سوق قاري وورك السماء إلهي والسودي بني آدم كهو ورميا وضدك إلي به تاسع يجي بدن أرض مدينة بكوري دروا يا كان لينا الله رب العالمين